Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Qaybteeni labaad ayaynu sii soconayso. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna leeyahay: laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli alkitaab, man yacmal suu'a yujza bih. Yadadiiladiina iyo umnidiina iyo waxaad iska rajaynaysaan ahlalkitaabka iyo idinkaba toonnaba ma aha oo Ilaahay leeyahay. Waa maxay? man yacmal suu'a yujza bih. nin walba wuxuu shaqaystaa buu leeyahay. walidaalika buu Ilaahay subxaanahu watacaala nabigiisa wuxuu ku leeyahay: waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii qaflah wahum laa yu'minuun. waxaad ugu digtaa ood ugu digtaa maalinta calaacalka yowmul xasra, haddii uu amalka iska dheeraado oo diyaargarowda yaraado oo dadka sidaa ku dhintaan, calaacal baa bilaaban doona. yaa laytanii qaddamtu lixayaatii rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiimaa tarakt. ilaahayna biniaadanku yaqaanaa wuxuu tilmaamay wax ka cajab badan maleh biniaadanka. haddii marka la celiyo baa la low rudduu, haddii marka la celiyo halkii un bay ka bilaabi lahaayeen. soo qariib maaha in aakhir la geeyey naar iyo janno iyo balaayada taale oo arkay, oo haddana markii adduunyada loo soo celiyey oo sida haddana meesha ka bilaab. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay: yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat liqad wattaquu llah ina allaha khabiirun bimaa tacmaluun. walaa takuunuu kaaladiina nasuu allaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun. xabaal buu nebiga sallallahu calayhi wasallam soo maray, markaasuu yidhi: man saaxibu hada alqabr? war xabaashaan waayo, waa kuma? markaasaa la yidhi: waa hebel. nebigii inuu saxaabada u jeestay buu markaasu wuxuu ku yidhi: 2 ragcadood oo dukado ayuu maanta ka jecel yahay waxaad haysataan oo adduunye ah. yacni haddii liis miisaanoo la yiraahdo 2 ragcadood iyo adduunyada kee baad qaadaysaa, wuxuu ka jecel yahay 2 ragcadood. wuxuuna u sheegayaa in ay halkaas markii la galo inay ka kheyr badan tahay, ka wanaagsan tahay wax adduunyada yaal. ayuhal axiba, adduunye jecelka adduunyada horta marnaba lama naco, laakiin waxaa la rabaa inaan nafteena rabbeeno oo aan aakhiro jecelkeeda aan ku bedelano. markaasuu ilaahay wuxuu yidhi: man kaana yuriidu xayaata addunyaa wasiinataha nuwafi ilayhi acma wahum fiiha laa yabqasuun. ninkii doonaya nolosha quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda waan siinaynaa, iyo wuxuu camal falayna wax lagama reebayo. wahum fiiha laa yabqasuun, wax laga nusqaaminayo ama laga reebayo male, waa loo dhammeynaa raaxada adduunya. laakiin ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar waxabida maa sanacuu fiiha wabaadiluhum maa kaanuu yacmaluun. laakiin waxaa leeyahay kuwaasi waa kuwan aan aakhiro wax aanu ku lahayn ilaa naar mahayne. waxay shaqeeyeenna waa la buriyey, camalkoodana waa baadil. yacni adduunka u noolaay, adduunkana wuxuu ka calafilayna wuu qaatay. biniaadanka dunida wuxuu u joogaa in la imtixaano. xorriyad baa ilaahay siiyey, waxaana loo abuuray qaab oo wax dooran karo. laakiin doorashadu dooranayo waxay u baahan tahay caqli iyo aqoon iyo iraada go-an. asal waxaa u ah buu leeyahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, xadiiskuu bukhaari warinayo cabdullaahi bin mascuud oo ka warinayay nebiga calayhi salaatu wasalaam. nebiga wuxuu jeexay buu yidhi qad oo 4 gees ah ayuu sameeyey. nebiga 4 geeskii qadkii ahay ayuu halka dhaxal ka saaray oo saas qadkaa dhexe xariijimo u yeelay. waxuu ku tilmaamay markaas 4 gees ee xariijan
ku wareejiyo qofka waa ajashiisii. Macnaha ajasha waa geeridii aanu dhaafaynin. Qadkan ka dhex baxayna waa amalka iyo rajada. Geerida meel ka fog ayuu qofka markasto ka rajo qabaa. Bini'aadanka dunida wuxuu ka baxaa asigoo arrimaha qabyo ay ka yihiin. Asigoo wuxuu qorsheeyay ay qabyo tahay ayuu dunida ka baxaa. Wuxuu kale oo nabiga tilmaamay xariijimaha kale ee dhaxda ka baxay oo fiidfiitaa yaryar sii la lahayn. Wuxuu ku tilmaamay inay tahay mashaakilka adduunyo oo aana marnaba mushkilad la'aan oona ahaanin. Qofka bini'aadanka rajada iyo yadidiilada uu qabo inaanay xadba aysan lahayn, in ay cimrigiisa iyo waqtigiisa ay ka dheerta. Laakiin waxaa la rabaa qofka muslimka in uu mas'alada xaddiyo meel ka dhow oo u arko. Intaasaa jeclaystay inaan soo gudbiyo. Marka insha Allah qaybta saddexaad noo soo gudbinayna.